السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جواب عينta degdega jawaabta ama warcelinta caqliyeysan oo mid ka dhigaysan ku dhageysanaya inuu ka aamuso wuxuu sheegana garan waayo. Halkan waxaan kugu soo gudbinayaa jawaab celin caqliyeysan oo ay taariikhdu qodhay. Albert Einstein ayaa yidhi laba shay dhammaan ma leh adduunka iyo doqonnimada qof, balse adduunka ma hubo. Mid ka mid ah ayaa dameer ku sawiray buug uu saaxiibkiis leeyahay. Markuu arkay ayuu weydiiyey ciddii joogtay, waa kuma saxay wejigiisa buugayga. Mid ayaa doonay inuu ku xanaajiyo nin caalima. Wuxuu ku yidhi halkaas markaas soo bilaamaysay gabar baan ku mooday. Caalimka ayaa yidhi anna meel fog markaan ka arkay nin baan ku mooday. Mid ka mid ah kuwa guud ayaa ku tilmaamay haweenku inay kabaha u kala yihiin xilligii la doono la gashto, xilligii la doonana la iska saaro. Nin xigmad saaxiib ah oo meesha fadhiyey ayaa la weydiiyey maxaa kaaga baxay hadalka ninkan. Wuxuu yidhi ninku wuxuu sheegay waa sax, haweenaydu waa ka aragtida mid naftiisa u maleeya lug oo kale. Nin baa wuxuu yidhi waxaan noqon doonaa dhakhtar maalin un. gabar ag fadhiday ayaa tidhi dhimashankayga inaan kaa cilaaj qaato. Wuxuu yidhi waxaan ku yidhi dhakhtar ee ma ah kan waan le. Faqiir Bashaar Biruberde ayaa midna casay maalin weydiiyey ilaahay qofku indha turo abaalgud buu siiyay. ilaahay wuu abaalguday. Bashaar ayaa yidhi inaan noocaadoo kale arag. Mid ayaa maalin ku yidhi saaxiibkiis hebel baa wax kaa sheegayey. Ninkii ayaa yidhi hebel wuxuu igu soo ganay fallaadh, iguma sadhicin. adigu fallaadhii maxaad u soo qaaday oo qalbigayga gelis? nin ayaa maalin gabar arkay. Wuxuu ku yidhi alla qurux badnida. waxay ku tiri qurux badnaan lahayda si aan hadalka kugu bedelo. Wuxuu ku yidhi dhib ma laha, been baan sheegay adiguna been sheeg. yacni labada waa fool xumaaya. mid ka mid a mulxidiintii ayaa weydiiyey Sheekh Axmed Diidaad ka waran adiga oo adduunka dhan aad u dadaaday haddaad dhimato oo aad ogaataysa aakhira jirin. Wuxuu ku yidhi sheekhay kolayba xaalkaygu ka xumaan maayo. maalin maalmaha ka mid ah ayuu Dufayli arkay qoom khaliifada u socda. wuxuu u maleeyey inay albari ka jiro qasriga. markaa wuu raacay. qasrigii markay soo galeen ayuu ogaaday inay gabyaalo yihiin. mid kasta markuu gabay ammaana u tiriyey khaliifadii ayay tookadii soo gaadhay Dufayli. suldaanka ayaa ku yidhi maad tirisa gabaygaaga? wuxuu yidhi gabyaamay suldaankaygiiyow. wuxuu yidhi suldaankii haddaba yaa tahay? wuxuu yidhi waxaa qaawiinta. ilaahay ayaa yidhi washucaraa'u yattabicuhum alqaawiin. suldaanku waa uu qasbay wuxuuna amray in abaalgudka gabyaayada la siiyo kale la siiyo. barnaasho ayuu weydiiyey mid qoraaya barnaasho anaa kaa fiican, adigu waxaad wax u qodhaa si aad lacag u heshid, aniguna waxa u qoraa si aan sharaf u helo. barnaasho ayaa yidhi run baad sheegtay, mid walba waxa ka maqan buu raadiyaa. oo adigu sharaf baa kaa maqan, sharaf baa raadinta, aniguse sharaf baan haystaayo lacag baan raadinayaa. barnaasho ayaa nin weydiiyey miyuusan cunto kariyuu ka anfac badnayn dhanka ummadda kan gabyaaga ah? wuxuu yidhi barnaasho ayada ayaa aaminsan arrinkaas. wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa codsi qorkiisa sheegay mar uu boqor Faysal kula kulmay Jidda 1973 waana xilligii shidaalku ka jaray reer galbeedka. ayuu isagoo ku dhedheelay ku yidhi diyaaradayda shidaal la-aan ayay garoonka la fadhidaayeen maadamadii boqorkaygiyo inay shidaal ku shubaan, aniguna qarashkaan bixinayaa. mau dhowla cadeen boqor Faysal wuxuuna ku yidhi anigu nin da-ah baan ahay, rajadaydu waa inta aanan dhiman inaan 2 ragcadood tukado masjidka Aqsa. ma iga caawin kartaa inaad rajada ila rumaysid? sida inaad rajada ila rumaysid ayse dhacayn ayayse u dhacayn inaad shidaalka diyaaradda ku shubatid. nin sheekha ayaa malakul mowdka hayay ayaa nin ka mid ah dadkii soo booqanayay muddo dheer ag fadhiyey. markaas buu ku yidhi ina seexee. wuxuu yidhi sheekhii ag fadhiisan qof xanuunsan muddo dheer. nin bakhayl ayaa waa xajiyey. markuu soo laabtay waxa ku soo xogay asxaabtiisa inuu albari u sameeyo una oofiyo ballantuu ka qaaday. wuxuu ugu jawaabay wax kasta oon xajkootis dhahay ilaahay baa noo dhaafay xajka gadaashiisa. wasalaamu calaykum.